waxa uu ahaa daafurka ololaha nabadgelyada gobolka Banaadir iyo kaalinta ay dhalinyaradu ku yeelan karto in dadka reer Muqdisho ay nabad ku noolaadaan oo lagu qabtay dugsiga tababarka booliiska ee General Kahiye qaybaha kala duwan ee dhalinyarada ku nool gobolkan ciidamada kala duwan ee ka howlgala amniga caasimadda iyo mas'uuliyiinta qaar ayaa intoo wax ay qareen in shacabku uu qaba rajo kaga bixi karo hadimada ay kooxaha nabadiidku ku hayaan mudane madaxweyne matiin madaxweyne caadi waxaa tahay rajada ummadda Soomaaliyeed waxaa tahay qofkii la sugayay intaasoo dhan loo hamuun qabay waan kuu hiilin waan kuu banaan baxna waxaan kaa rabnaa mudane madaxweyne inaad annagana noo hiiliso waxaan kaaga baahanahay mudane madaxweyne inaad noogu hiiliso nabadda qolooyinka siyaasiyiinta ee mataqaanaa ku xeeran dowladnimada sida la sheegay inay hor u socotana diidan walaalayaal magac waad naga samayseen lacagna waad naga samayseen hay'ad ku filnaato bas wasiirada maaliyadda iyo dhalinyarada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in uu jiro baraarug uu dadweynuhu isu kaashan karo adduunka maanta wuxuu noo yaqaanaa qaranka ugu dhalinyarada badan dunida maadaama aan noqonay qaranka ugu dhalinyarada badan dunida shacabka ugu tirada badan dalka geyiga Soomaaliyeedna ay yihiin shacabka gobolka Banaadir caasimadda Muqdisho na ay noqdeen shacabka ugu dhalinyarada badan waxa uu u taala kaalin aad u muhiim ah si ay uga qayb qaataan ololahaas nabadgelyada magaaladan waxa qeyro igelisay dhalinyarta halkan isugu timi dhalinyarada halkan isugu timi ee iyagoo saf u socda halkan soo galay ee ka hadlay qeyrada ku jirta ayaa runtii diilo fara badan la gelisay duqa Muqdisho ayaa xusay in musiibadii 14 Oktoobar ay taabatay muwaadin kasta oo Soomaaliyeed musiibadii 14 Oktoobar oo qof walba Soomaaliyeed meel kasta uu jooga iyo adduunyada oo dhan ay dareentay oo qof walba si gaar ah u taabatay musiibadii maalinta dhacday dadka ugu horeeya ee soo istaagay waxay ahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta waxaan haysanaa fursadii ugu weyneed waxaan sidaa darteed codsanaynaa shir wareegan ee aan bilawnay ee ah in nabadgelyada degmooyinka gobolka Banaadir ee kaalinta dhalinyarada oo aan degmo walba ku qaban doono in aad si buuxda noogala qayb qaadataan si aan u gaarno hadafka aan rabno oo ah nabad iyo nolol madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlayay dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadan oo u badnaa dhalinyaro ayaa sheegay in musiibadii qaran ee 14 Oktoobar ay dalka u bedeshay midnimo qaran waxaana madaxweynuhu uu dalbaday in wax kasta laga hormariyo sidii dalkan looga xoreyn lahaa kooxaha nabadda diidan isagoo amaanay doorka dhalinyarada ee hawlaha dalka wixii dhacay 14 Oktoobar oo ahayd musiibo qaran waxay noo dhashay musiibadaas qaran midnimo qaran ayay noo dhashay hal cadow yaan leenahay halkaas cadow aan leenahay waa qolooyinka nabadiidka oo shabaabka ah oo maalin walba shacabkeena xasuuqaya oo aanan cid u naxaynin oo caruurteena leenaya oo aan kala jecleen qofka inuu dawlad u shaqeeyo inuu shacab aan kala jecleen cadawgeena rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye markaan ka adkaano aan isku soo noqon annaga dhexdeena dhalinyaro waxaan noo balana dalkan inaan xoreyno waxaan noo balana inaad dadkiina xoreysaan waxaan noo balana inaad diintiina xoreysaan oo aad sharaftaan dalkan dadkiisu argagixisadu ay leynayso 75% waa dhalinyaro waa kuwa ugu badan ee ku geeriyooda qaraxyada kooxaha nabadiidku ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho sidoo kale waa xubnaha ugu badan ciidamada jamhuuriyadda waa hubaal in haddii ay hormuud u noqdaan nabadda Soomaaliya iyo midda caasimaddanba inay geli doonto gacan hubanti ah Cali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka dugsiga tababarka booliiska ee General Kahiye